الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. waxaan ku guda jiray kitaabkii lumcat الاctiqaad alhaadi ilى sabiili rashaad. waxaana soo gaarnay aayaddii miisaanka ahayd oo ahlu sunna ay yidhaahdeen wax walba oo shubahaada ah haddii lagula yimaado ruduudda dadka mutashabihada ah oo ku xadgudbay aladiina qaluu fi sifaati اllahi subxaanahu watacaala iyo nimanka mucaطalada ahaa oo ayaga micnihii saasoo kale xadgudbay laysa kamidlihi shayءu wahuwa samiicu basiir. waa intaa kadib sheekhu wuxuu tilmaamay arrin cajiib ah wakulamaa takhayala fi dihni ow khatara bibaali faina allaha tacaala bikhilaafih. wax walba insaanka caqligiisa kusoo dhaca ama maskaxdiisa kusoo dhaca ilaahay waa khilaafkiisa, yani dhanka kale u ku jiraa. marka marnaba micnihii haysdhihin ilaahay subxaana watacaala sidaas wax u arkaa, araggiisa waa sida, maqalkiisa waa sida wax la midka ah. kadib meeshaan waxaan ka bilaabi doonaa haddii alle subxaana watacaala uu yidhaahdo aayado oo micnihii markaysa istiwaha alle subxaana watacaala iyo xadiidta istiwaha kusoo aroortay aan qeyb ka mid a sheegi doonaa. sheekhu wuxuu yihi ibn qudama min dalika qowlihi tacaala alraxmanu cala alcarshi istawa. aayaddan waxay tilmaamaysaa carshiga alle subxaana watacaala fowqiyada iyo addoommadiisa in alle subxaana watacaala uu ka sareeyo. culimada muslimiinta markay ka hadlayaan istawaha alle subxaana watacaala waxaad ogaataa madhabka soomaaliya usoo hormaray ashaaciru ahaa oo marka hore kutubteena soo gaartay oo wax lagu sheegi jiray ayaa sidaa ahayd. yani madhabka ashaacirada ayaa inta badan soomaaliya usoo hormaray, wayna awili jireen min ariiqati ashaacira maturidiya iyo qaadiriyada iyo axmediya zayliciya saalixiya. intaasoo dhanba markii lasu geeyo waa micnihii way awilaan oo way diidaan. nimankan wax diidan un bay la mid yihiin sifaatka alle subxaana watacaala iyo asmaadiisa. waxay leeyihiin tusaale ahaan marka laga hadlaayo istiwaha alle subxaana watacaala culamada islaamku waxay kaga hadlaan calaa wartafac, yani fowqiya, ilahay inuu adoomadiisa uu ka sareeyo subxaanahu jala wacala. nusuustana saasay ku tusinaysaa sida imaam shaafici naftiisa uu tilmaamay. wuxuu leeyahay 1000 adiladood in ka badan ayaa la heli karaa, bal bacd culama waxay geersinayaan 2000 oo adiladood in la heli karaayo ilaah subxaana watacaala adoomadiisa inuu ka sareeyo. waxaad u malaysaa masaladan in sanadahan dambe xiwaarka kaliya u ah ilaahay adoomadiisa waa ka sareeya ee kama sareeyo. tusaale ahaan haddii la yidhaahdo micnihi arraxmaanu cala alcarshi istawa, istawuhu waa arki doonaa adilada kusoo aroortay, laakiin aayadda alam tara ana allaha yaclam oo suurat lmajaadala ku jirta يعني 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. aayadaas أحmed بن xambal raxmat ullahi calayhi raduud jahmiya markuu kaga hadlayo kale wuxuu yihi aayaddan waxay ka bilaabatay alam tara ana allaha yaclam, horena waan usoo sheegay, calimna way ku dhamaatay. laakiin isweydiinta waxay tahay ilaahay waa joogaa meel walba, allahu mawjuudun fi kuli makan. waa arrintaas lafdiga aan daba taaganahay oo niman meeshaana markaan kula dooday axbaashta oo magaaladan hadda aad ba dhalinyartii hata ay wada aadeen oo kale waxay ku leeyihiin ninka yihahdaa ilaah subxaana watacaala adoomadiisa waa ka sareeya fahuwa kaafir. nin weliba oo muslin ah oo yidhaahda ilaah adoomadiisa waa ka sareeya waa gaal. 2,000 oo adiladin waa heli karaynaa. allahu mawjuudun fi kuli makan waxaa ula jira micnihi jasam, inaad tirahda daat llahi subxaana watacaala micnihii ama yani ama aad tirahdid allah subxaana watacaala bicilmihi o bidaatihi. ilahay meel walba waa u jooga. soomaalida intaas markay yihahdaan haddii dib loo sii fiiriyo la yihahdo maxaa ula jeedaa? haddii ilahay meel walba waa jooga kuleeyahy. horta ilahay meel walba waa u joogaa maa lisu khilaafsan yahay mise daatu shay daatihi daadada waxa la yihahda sida qalimkan oo kale. qalimkan waa daatu shay. haddaad tirahda ilaahay isaga ayaa jooga sida qalinkaan aan u aragno kale daatadiisa oo nooga muuqdo, ilahay qolkaan uu jooga, kaasuu ku jiraa, musqushuu ku jiraa, meel buu ku jiraa, waxaasoo dhan aa micnihii ka ratib maayo. laakiin haddaad tirahda ilahay subxaana watacaala bidaatihi fowqa 7 samaawaati fowqa carshihi haddaad tiraahdid, laakiin bicilmihi ayuu alla subxaanahu watacaala nogula joogaa. ilahi subxana watacaala isagaaba qur-aanka ku sheegaya yaclamu maa bayna aydihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bihi cilmaa. ma soo koobi karayn alla subxana watacaala. haddii aragtida la yihahdan ilahi subxana watacaala adigu ma arki karaysid, lanno aragtida ama idraaga bini aadamku nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markii la yihi ilaahay ma aragta wuxuu nuurun ana araahu yihi
ilaahay subxaana watacaala adduunka ma lagu arkayaa mise aakhiro waa masalo kale bacd micnihii dadka ka mid a ayaa qaba bal kuwa micnihii muctasilada oo kale waxay leeyihiin waxaaba mustaxiil ah in ilaahay subxaana watacaala la arko gadaalan u imaan doonaa masaladaas ayada markan waxaan rabay inaan cadayno nimankan mucaطalada la yihaahdo oo micnihii alculuw walfawqiya yani diidan wakadalika yani qur'aanka kalaam اllahi subxaana watacaala xarf iyo sowt inuu yahay niman mutaakhiriinta iyo mutakalimiinta kamid ah aaday uga hadlaan wayna awilaan oo waxay leeyihin istawaha markii la joogo o kale waxay leeyihiin bilqahri ilahi subxana watacaala isaga ayaa adoomadiisa yani qahra wاlاstilaa saasay ku macneeyaan wa yuawiluun ayضا waxay awilaan saas oo kale الnuزuul waxay leeyihiin yani waxaa soo degaya amarkiisa ilahay isaga subxana watacala ma imaanayo horaan soo sheegay wa yuawiluuna ayضا bilyadayni aw yadayni bilqudratayni aw nicmatayni yad luqadda carabiga gacan waa gacan ayagu laakin waxay leeyihiin ilahi subxaana watacaala gacantiisa ma sheegi karayne tabaaraka aladii biyadihi lmulku iyo bal yadahu mabsuudataani oo kale waxaan leenahay qudratihi aw nicmatihi aan leenahay saas oo kale waxaa waaye nasuusta marka meelahaas la joogo ayagoo dhan way awilayaan oo way diidayaan calaa wartafac yani barnaamijka xaggaas saasuu yahay ayib haddii aad ogaato marka labada طaa'ifadood oo ashaacirada haddaan ogaanay imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi isagu muxuu ka qabay masaladan imaamu shaafici waa uu sugaya wuxuu sugayaa allah subxaana watacaala fowqa carshihi in micnihi uu yahay dadka shaaficiyadu waa in ogaadaan bal waxaa la yaab leh ninka la yihahdo kitaabka oo micnihii la yihahdo usul اlfikriya liminhaaji asalafiya oo uu leeyahay sheikh اlislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi calayhi waxyaalaha uu kaga hadlay waxaa ka mid ah nin la yihahdo imaam alcaarif macmar ibnu axmed alasfahani wuxuu sheegayaa hadal wuxuu kasoo guurinaya safxada 140 wuxuu kaga soo guurinayaa hadal cajiiba wuxuu leeyahay ninkaa isaga ah macmar ibnu axmed alasfahani hadalkiisa wuxuu leeyahay wa ana allaha subxaanaه watacaala istawى calى carshihi bilaa kayfin walaa tashbiihin walaa tawiil isaga naftiisa soo guurinaya caqiidada wuxuu kusoo guurinaya alxamawiya اkubraa iyo majmuc rasail kubra shekh islam ibn taymiya masaladaas meeshaas ayuu kaga hadlaya labadaas kitaabka hadda idin tilmaamin oo ku sheegaya marka suufiyada nafteeda kuwii hore mutaqadimiinta ahaa ayaa saa dhahayay wa ana allaha istawى calى carshihi yani ma dhahayaan qahar ma dhihi jirin bilaa kayfin walaa tashbiih ayadoo kayfiyada aan lisweydiinaynin tashbiihna aan lisweydiinayn sidee u egyahay sidee ugu fadhiyaa sidee u ahaaday ama aan lagu shabahaynin makhluuq isaga u abuuray sida kursiga ay u fadhiyaan oo kale hebel nimankaas siday usoo wadeen waxay keeneen masalada hadda aan sheekha kasoo guurinayo usul fikr kitaabkaas sheikhulislam ibnu taymiya waxay yihahdeen waxay micnihi kasoo guuriyeen suufiyadu in ilahi subxaana watacaala kursigiis uu ku dul fadhiistay uu keenay sheekh marba lagama haayo waxaan calaa wartafacaan ahayn isagoo lagama keeno oo micnihii shaqo kuma laha marka sheekha isaga markii la weydiye wuxuu leeyahay walaa ta'wiil walistiwaau macquul wاlkayfu fiihi majhuul وأنه عز وجل baaئن min khalqihi wاlkhalqu minhu baa'inuun waa ninka aan kuu sheegay hadalka saa dhahayo alimaam alcaarif ayay leeyihiin waa macmar ibnu axmed asfahani isagaa qirayo in addoommadiisa uu ka sareeyo dadka naftoodana alla subxaana watacaala inaysan micnihii aan dhahna maaha ilaah iyo makhluuq isagu abuuray ayaa isku mid ah sheekha saasuu hadalkiisii uu ku keenay waxaan rabaa marka intaa kadib laba digniin intaan aayadaha aan hore usoo sheegay aayadaha soo arooreen dabcan aan sheegi doona intaan aayadaha soo qaadin waxaan rabay inaan tilmaamo qolada berihan dambe ku mashquulsan internetka ama facebooka ama meelaha lamidka ah oo ayagu inta ridooweyn kuwa muslimiinta kamid ahna raba inay la doodaan ama kuwa qolalkooda ku jira horena waan uga hadlay dabcan waan ku celinaya mar kale waxaan leeyahay ninka ridoowey baabkeen doonayna inaan kala hadalno ma waxaan micnihi uu qirsan yahay aayadan arraxmaanu cala alcarshi istawa ma qirsan yahay haddii aayadda uu qirsan yahay shubha ay ku dhacday sida kuwan istawlaa iyo qahar ay ku macneeyey waa dad muslimiina haddii uu ula jeedo shubhadaas ay ku dhacday ha laga jaahil waa masalo kale laakiin horta isagu ilaahay subxana watacala ma rumaysan yahay marka hore ma ciisa wiilkii ilaah uu rumaysan yahay ma ciisa ilaah uu rumaysan yahay ma thaalithu thalaathu rumaysan yahay ninka kala doodayo adigu baabkaad ahayd inaad kala doodo waxay ahayd sababta uu ku ridoobay inaad weydiso shubhada ridada keentay nin weyn 40 jir 50 jir Soomaaliya kasoo tagay meesha doonaba ha joogo inuu ridoobo uu gaalo waxa ku kalifay jahliga diinta ka haysto Soomaha inuu diintiisa fahmi waayay baa ku kaliftay inuu mid kale raadsado marka ninkan
yani diintiisa wa fahmi waayey oo wax ka fahmi waayey midda kalena kuma sugnaani doono horta taa ogow taa darteed gabay waxaa jiray wama اkhtarta qowl shaaficiya diyaanatan hadal laga soo guriyo gabaygaasaa jiro yani nimankan xisbiyada oo isbabedela markii laga soo hadlayo gabaygaaga wuxuu leeyahay imaam shaafici qolkiisana diin ahaan uma galine laakiin xoogaa yaroo dhaqaale markaad aragtay unbaad dhex gashay berid marka hore waxaad ahayd xanafiya maantana waxaad naqatay xanaabila kadibna waan ku arki doonaa u yihi meeshaad aado marka hadda kana diintiisa isaga jaahil ka ahdo diin kale u galay midda kale uu galana bal inuu ku sugnaado isagoo sii fiiriya marka waxaan u sheegaynaa ninka raba inuu la doodo ninka ilaahay subxaana watacaala miyuu ku haystaa aayadaha inuu isaga soo dejiyey intaan qur-aanka nabi maxamed lagu soo dejin arraxmaanu cala alcarshi istawa ilaahay subxaana watacaala soo addoommadiisa kama sarrayn alle subxaana watacaala intuusan abuurin intaa ka hore ayuu khalqigiisa ka horeeya hadalka cabdullahi ibni cabaas naftiisa ayaa ku tusinaya oo uu ku qiraayey yani alle subxaana watacaala inuu addoommadiisa ka horeeyey oo ka sarreeyey intuu makhluuq uusan abuurin ka horena alle subxaana watacaala inuu jiray saasuu cabdullahi ibn cabaas naftiisa soo guurinaya hadalkaa marka ilahi subxaana watacaala hore u jiray yani makhluuq intuusan abuurin ka hore u jiray samaawaadka waa makhluuq carshiga waa makhluuq kursiga waa makhluuq annaga makhluuqana waa nala abuuray intuusan waxaan abuurin ka horena ilahi subxaana watacaala waa uu jiray nabi maxamed intaan diinta lagu soo dejinin aayaddan aan lagu soo dejinin arraxmaanu cala alcarshi istawa aayaddan intaan lagu soo dejinin ka horena kutub kale ayaa jirta oo ambiye kale lagu soo dejiyey ilaahna waa kasii sarreeyey aadam markii la abuurayey cadam uu ahaa marka abuuritaankiisa waa noola sheegay ilahi subxana watacaala aadam intuusan abuurin ka hore ayuu yiri subxaanahu jala wacala marka sifa caajiza ma laha sida adigu u daasho kale uma daalo sida adigu u seexato kale uma seexdo sida adigu u gaajeysanta kale uma gaajeysna sifaadka makhluuqa ay leeyihiin oo dhanna ilahi subxaana watacaala waa ka duwan yahay marka taa ninkaa isaga marka lala doodaayo waa in lagala doodo waxa isaga qoseeya aan lagala doodin baabu isaga shaqo ku lahayn baabu riddaa lagala doodaya ninkaa isaga arrintiis waa sidaa aayadahan marka oo aan tilmaami doono yani taqriiban waxaad arkaysaa ilaa iyo waxay tilmaamaan 7 aayadood lakiin saan sheegayba imaam shaafici wuxuu tilmaamay yani aayado aad u tiro badan iyo axaadiis aad u tiro badan ilaa ay wax la jira micnihi gaaraayo bacd culamaana 2,000 micnihi way dhaafiyeen waa aayadahaas marka qayb kamid a bal haddaan tilmaano qaala allahu subxaanaه watacaala ilahi subxaanaه watacaala wuxuu yihi waman asdqa min allahi qiila ina rabkum allahu aladi khalaqa asamaawaati wاlأrض fi 6 ayaami ثuma اstawى calى اlcarsh aayadda koowaad waa taas waa calى ilahay inuu adoomadiis ka sareeyo carshigiisu ahaaday qaala tacaalى ilahi subxaana watacaala wuxuu yihi wahuwa aladi khalaqa asamaawaati wاlأrض fi 6 ayaami ثuma اstawى wakana carshuhu calى اlma waa aayadda labaad wakana carshuhu calى اlma aayadda saddexaad oo alle subxaana watacaala qur-aankiisa uu ku sheegay waa aayaddan hadda aan soo sheegnay alraxmaanu cala alcarshi istawa oo suuratu taha ku jirta ayna aayadda afraad oo alle subxaana watacaala uu kaga hadlay waxay tahay aladi khalaqa samaawaati wاlard wama baynahuma fi 6 ayaam allaha waa allaha abuuray yani samaawaadka iyo dhulka iyo wamaa baynahumaa iyo inta udhexaysa wuxuu ku abuuray fi 6 ayaamin 6 maalmood ayuu ku abuuray uma istawaa cala alcarshi الraxmaan ayib aayadahaas waxay ku tusinayaan istawa ayay ku tusinayaan alla subxaana watacaala istawa cala alcarsh ayay micnihi kutusinayaan aayadaha kale waxaa ka mid ah oo soo socda aayadda 5aad waqaala tacaala ثuma istawaa ilى الsamaaءi wahiya dukhaanu faqaala laha walilardi i'tiya طawcan ow karahan qaalataa atayna طaayiciin taasna waa aayadda 5aad aayadda 7aad ilahi subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay aayadda 6aad alle subxaana watacaala wuxuu ku leeyahy ثuma istawaa ilى الsamaaءi fasawaahuna 7 samaawaati waa aayadda 6aad oo alle subxaana watacaala uu yani istiwaha uu kaga hadlo aayadda micnihii 7aad oo culimmada ay kaga hadlaan 7 aayadood ay inta hore soo guuriyaan waxay tahay yudabiru اlamra min الsamaaءi ilى اlأrض ثuma yacruju ilayha fi kuli yowmi miqdaaruhu 1000 sanata mima tacuduun aayaddaasna waxaa waaye aayadda 7aad aayadda kale ku xigta 8aad oo micnihii sacuudka ku tusinaysa waxaa ka mid ah ilayhi alla subxaana watacaala yascad alkalim ayib ilayhi yascadu kalim ayib ayib aayadda 9aad waxay tahay waqaala tacaala inii aniga waa ciisa markii alle subxaana watacaala uu ka hadlayay yani mutawafiika waraaficuka ilay waa aayadda
yani toddobaad. marka tii hore ilahi yascadu kalimu طayib iyo midanba waxay ku tusinayaan sucuud ayay micnihii iyo rafca ayay ku tusinayaan. aayadda kusii xigta waxay tahay waqaala tacaala wma qataluuhu yaqiina bal rafacahu اllahu ilayh wa rafca ilahi subxana wa tacala xaggiisa ayaa loo qaaday maynan dilin ciisa calayhi الsalaatu wasalaam. fawqiyada rafcada iyo hadda waxaan tilmaamay sacuudkan tilmaanay waxaa ka mid ah rafcada ayaa ka mid ah oo ayadana micnihii fawqiyada ayaa ka mid ah ayadana oo ku tusinaysa fawqiya yani sareen ilahi subxana wa tacaala. waqaala tacaala fi lmalaa'ikati wuxuu ku yidhi yakhaafuuna rabahum ilahi subxaana wa tacala ayay ka baqaan oo min fawqihim. ayib aayadda 11 oo culimadu ay keenaan waxaa ka mid ah aayadda am amintum man fi الsama an yaksifa bikum اlأrض faida hiya tamuur am amintum man fi الsama an yursila calaykum xaasiban. aayadaasi am amintum man fi الsama waxay naga tusisay fi ayay naga tusisay. fiidu marka waa bimacnaa calaa ayay taagan tahay, sareen ayay taagan tahay. waayo haddii hadda alle subxaana wa tacala aayaddiisa aan kuu sheegno aan soo qaadno qul siiruu fi lardi fi adigu ma dhulka hoostiisaad ku socotaa mise kor. fiida min xuruuf iljar ayay ka mid tahay fi iyo calaa iyo waruba iyo walkaaf iyo walba iyo xaruuf alqasm wallahi bilahi talaahdi iyo waxaasoo ilaa iyo wacan waxaasoo dhan waa ayaga micnihii waa xuruuftaas waxa la yihahda xuruf iljar la yihahdaa. marka fiida bimacnaa calaa inay taagan tahay am amintum waxaad ka aamin naqateen man baad ka aamin naqateen fi samaa ilahi subxaana wa tacaala samada allihii ku dhex jira miyaad ka aamin naqateen. de samada waa muxdith waa mar micnihii wax damboo la abuuray makhluuqaadka ilahi u abuuray ayay ka mid tahay. marka waxaa loola jeedaa ma waxaad ka mid ka aamin noqoteen cala samaai micnihi saasa loola jeedaa. wasiiruu fi lardi annaga cala alardi dhulka dushiisaan ku soconnaya gudihiisa kuma soconno. waxaa kaloo la mid ah fircawn wuxuu yihi markuu la hadlayay hamaan markuu la hadlayay wuxuu yihi waqaala fircawn wuxuu yihi ya haamaanu haamaanow ya haaman ibna lii sarxan lacalii abluqu asbaab الsamaawaati wاlأrض asbaab الsamaawaati faطalica ilى ilahi muusa wainii laadunhu kaadiba. waqaala fircawn ya hamaan ibna lii sarxan marka wuxuu leeyahay bal ii dhis waxay dhis lacalii abluqu asbaab الsamaawaat faطalica ilى ilahi muusa wainii laadunhu kaadiba. beenlow ayaan u malaynaya meel ii dhisuu leeyahy ilى gayri dalika min alaayaat oo aayadahaas ay ka mid yihiin ayaa ku tusinaya yani fawqiyada alla subxaanaه wa tacaala. wa ama xadiid oo ka soo aroortay nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam ayadu aad iyo aad ayay u badan yihiin yani axaadiid aad u badan ayaa micnihii jirta. kuwo ka mid ah bal haddaan soo qaadno waxaa ka mid ah salaadaha markaan dukanayno waxaan akrinaa waxaan leenahay subxaana rabbi اlaclى yani waa ilaahay iga sareeyey ayaa micnaheed u yahay. xadiidka labaad aan soo tilmaanay oo hore aan usoo tilmaanay wuxuu ahaa xadiidka mucaawiya ibn xikam aلsulami qaalat wuxuu yihi kaanat lii yani waxaa ii sugnaan jirtay jaariya gabar jaariyad ahoo ariga micnihii ii raacda ayaan lahaan jiray. waa xadiidkan xadiidka inta badan ama ay ta'wiiliyaan ama ay diidaan amaba ay duraan. xadiidkana wuxuu ku jiraa saxiix muslim. ayib gabar ayaa micnihii ii sugnaani jirtay oo jaariyad ahoo ariga ii raacda. anigu bini aadan ayaa nahay sidaan u caroodo un baan caroonaya. maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa yimid dhurwaa ayaa yimid dhurwaagii ayaa wuxuu ka qaaday naf ari ah. markii arigii uu ka qaaday dharbaaxtay ayaan ku dhuftay waan carooday waan dharbaaxay. kadibna nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaa micnihii aan u imid waxaan u sheegay arrintii dhacday ayaan u sheegay gabadhii yani in arigii dhurwaa uu ka qaaday aan carooday dharbaaxtay aan ku dhuftay. nabigu wuxuu yihi calayhi الsalatu wasalaam ikeen gabadhi i keen uu yihi. waa loo keenay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu weydiiyey ayn allah markaas waxay tiri allahu fi الsama yani calى الsama. marka nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam yani iska xurey gabadhan waa gabar mu'minad ah saasuu ku yihi. xadiidka isaga gabadha jaariyada ah waxay ka cilmi badan tahay boqolaal malaayiin oo muslimiina maanta joogto oo dhahaysa allahu mawjuudun fi kuli makan
ilaahi subxaana watacaala meel buu daatadiisa uu joogaa ayay ka cilmi badan tahay leanna fitradeeda saliimka ah iyo caqligeeda saxnaa ayaa waxay ku ogaatay in alla subxaana watacaala addoommadiisa u ka sareeyo addoommadiisa inuu ka sareeyo ayay baabkaas ayada a micnihii ku qoraysaa marka wa qowluhu am amintum man fi samaa ma waxaad ka aamin noqoteen man fi samaa ayaad ka aamin noqoteen iyo xadiidkan yani waa isku mid yani fiidaas ayay labadooda wada wadaagaan wa qowl nabiy sal اllahu alيه wasalam rabuna allahu aladi fi الsamaaءi taqadusa ismak xadiidkaas rabuna allahu aladi fi الsamaa rabbunigeyna waa midka yani fi الsamaa ay calى الsamaa taqadusa waxaa micnihii daahir noqday oo nasahnaaday ismuka yani magacaaga ayaa micnihii nasahnaaday saasuu micnihii sheekha uu ku wariyey wa qowluhu waxaa ka mid ah liljaariya ayna allah qaalat fi الsamaa qaala nabiga alayه sl slam iska micnihii xureeyu yihi fainaha mu'mina gabadhan waa gabar mu'minad ahee yani rumeeye rawaahu malik ibn anas wa muslim wagayrihima min ala'ima intaasoo dhan aa warisay maaligna waa u wariyey muslim waa u wariya iyo aimo kale ayaa micnihii xadiidkan isaga naftiisa warinaya malik muwaطa ayuu ku wariyay axmedna waa u wariya musnadkiisa imaam muslim waa u wariya abi daud wagayrihim dhammaantood waa xadiid mucaawiya ibn xikam asulami ayaa micnihi lagu wariya laakiin malik wuxuu ka wariyaa xadiidka camr ibnu xakam ayuu ka wariyaa riwaayadda yaxya ibnu yaxya leyti ayaa micnihii uu ku warinaya facalى kuli xaal xadiidkan waa xadiid saxa isagu nimanka raba inay mn jaamic usul libn اlathir naftiisa waa uu ku keenaa marka xadiidka sanad ahaan waa xadiid sugan oo yani dad kala qolooyinkan raba inay xadiidkan nabiga duraan alayhi الsalatu wasalaam meel majaal ama baab ay ku leeyihiin ma laha ayb waxaa kaloo ku soo xiga axaadiista ku tilmaamaysa abi hurayra radi allahu tacaala canhu waxaa laga wariyaa ana rasuul اlahi sal اlahu alيه wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam inuu yihi qaala wuxuu micnihii lilmalaa'ikati malaa'igta yatacaaqabuuna fiikum inay malaa'igtu isukay dabamaraynayso bileyli wa malaa'ikatu nahaar malaa'igta habeenka malaa'ikatu bileyli wa malaa'ikatu binnahaar ayb yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu leyl wa malaa'ikatu nahaar hadii la yihahdo acmaasha bini aadamka ay samaynayaan ayay micnihii gudbinayaan ribooda alla subxaana watacaala xaggiisa geynayeen wayajtamicuuna fi salaati اlfajr wa salaati اlcasr waxayna soo kulmaayaan malaa'igtaas ay micnihii ay imaanayaan salaada yani subax iyo salaada fajr labadaas ayay micnihii jamcayaan ثuma ilah xaggii subxaana watacaala ayay micnihii aadayaan ilah xaggii subxaana watacaala ayay ufuulaayeen o aadayaan marka ilahi subxaana watacaala isagoo og ayuu weydinayaa wuxuu leeyahay bal ka warama addoommadeyda ka warama wahuwa aclamu bihim kayfa taraktum addoommadeyda si ay ugu soo tagteen kayfa taraktum cibaadii fayaquuluuna waxay leeyihiin aataynaahum wahum yusaluun waxaan u nimid ayagoo yusaluuna dukunay wa taraknaahum wahum yusaluun xadiidka isaga waa mutafaqu caleyhi marka camalka in lala fuulaayo ayuu isaga naftiisa bimacnaa uu cadaynaya taasuu cadaynaya micnihii waxaa kaloo jira imaam dahabi naftiisa yani athar kale uu soo guurinaya ayaa jira waqiic ibnu ninka la yhah waqic ibnu xudusin can abi min zayn alcuqayli qaala wuxuu yihi qultu ya rasuul allah rasuulka allow ayna kana rabuna qabla an yakhluqa الsamaawaati wاlأrضa qaala kana fi camaaءin ma fowqahu hawaaء wma taxtuhu hawaaء ثuma khalaqa alcarsha ثuma اstawى calayhi tirmidi naftiisa ayaa xadiidkaas yani warinaya sanadkiisana bimacnaa waa sax ayuu leeyahay wa min axaadiiث oo soo arooray min hada baab dabcan saan u tilmaamay way badan yihiin waxaan rabaa marka qeyb bal ka mid ah saasoo kale aathaarta naftooda inaan fiirino intaan aathaarta ugelin bal aan aragno sheekha wuxuu keenay meeshan wuxuu leeyahay yaqulu wuxuu leeyahy allahuma allehayow alhamnii rushdii igu hanuuni nacam
cafwan waxaa ku xiga xadiidka uu warinaayo lxusein, xadiidka xusein yani ibn cubayd alkhazaaci oo waalidka cimraan ibn xusein ahaa ayaa waxaa laga wariyaa qaala nabiy sal اlه alيه wasalam lxusein wuxuu ku yihi kam ilaahan tacbud, meeqa ilaah ayaad caabudaysaa? qaala wuxuu yihi sabca todoba ayaan micnihi caabudaa, sitat fi اlardi wawaaxidu fi الsama, hal ilaah oo 6 dhulka ah iyo mid micnihii samada ah ayaan caabudaa. ayib wawaaxidu fi الsama. qaala markaasuu nabigu wuxuu ku yihi man liraqbatika wa rahbatika, midkaad ugu jecel badan tahay ama aad uga cabsi badan tahay todobadaas ilaah adigu aad sheegtay. qaala wuxuu yihi aladi fi الsama, midka micnihii samada yani cala الsama, samada midka alle subxana wa tacala adoomadiisa ka sareeya kaasaan uga cabsi badanahay oo nagu yani jecel badanahay. qaala markaasuu nabigu wuxuu ku yihi fatruki sita, 6 isaga tag, wacbud اladi fi الsama, ilaah samada ku sugan oo aad sheegtay yani caabud ay cala الsama, wa ana ucalimuka dacwatayni, anigana waxaan ku barayaa 2 dacwadood ayaan xusein ku barayaa. faaslama markaasuu micnihii islaamay. wacalamahu nabiy sal اlه alيه wasalam, markaasuu nabiga u baray ducadan allahuma allahayow alhimnii igu hanuuni, rushdii hanuunkayga igu hanuuni, waqinii ilaahayow iga badbaadi, shara nafsii nafteyda sharteedana ilaahw iga badbaadi. saasuu micnihii kusoo wariyey. lakiin xadiidkan duruqdiisa culimmadu way ka hadlayaan, way daciifinayaan. walahu 2 sanad ayuu leeyahy min طariiqi ziyaad ibn moxamed ibnu kacb, 2 sanad ayuu bimacna uu leeyahay. ayib xadiidka rabna allahu aladi fi الsamaai taqadus ismak, xadiidkaas ayaan ula jeedaa. 2 sanad ayuu leeyahay min طariiqi ziyaadata ibn moxamed ibn moxamed can moxamed ibnu kacb alquradi uu ka warinaayo can abi darda, abi daawud iyo nasaa-i iyo nasaa-i fi camal yowm leyl kusoo saaraa, xaakimna musnadkiisa kusoo saaraa, wاlbayhaqina fi اlasmaءi wالصifaat, wاdarimi abu cabdiraحman isagna wuxuu kuso sara rdud jahmiya, wibn qudama fi اlculuw waisnaadihi ضacf. xadiidka kaloo ku xiga isagana min طariiq abi bakr ibnu maryam ayaa sanadkiisa ku jira oo isaga laga hadlo. waxaa waaye sanadkiisa isagana culamada way daciifinayaan, midkan cimran sanadki juhaalaba ku sugan oo dacfi ah. marka calaa kuli xaal labadaas xadiid hadda aan soo aragnay, midkan kale laakiin midkan kale ziyaado waxaa jirta oo bukhaariga oo ku jira ayaa jirta ayadana oo alculuwi naftiisa uu ku keenaayo. marka xadiidkan allahuma alhimni rushdi waqinii shara nafsi, bacd اculamaa isagu bimacnaa way saxiixiyaan oo sanadkiisa waxay tilmaamaan inuu sax u yahay. ayib axaadiidtaas iyo micnihii in la mid ah ayaa micnihii ku jira. labadaas kelmadood ayaa micnihii la baray. allahuma alhimni rushdi waqinii shara nafsi, yani labadaas kelmadood ayaa isaga la baray. waxaa markaa intaa ka badan oo yani imaanaya aathaar ayaa imaaneysa, aathaarta saxaabada oo ayaduna aada u badan ayaa imaaneysa. yani waa nooga filan tahay istawaha ayadahaas iyo axaadiidada aan soo aragnay way nooga filan tahay. oo min aathaarta waxaa ka mid ah oo bacda صaxaaba ayagana laga soo guuriyo, aathaar cajiib ah ayaa ayagana laga soo guuriya saxaabada. taabiciinta naftoodana masaladaas shaki uguma jirin, sugitaanka in la sugo alla subxaanaه wa tacaala adoomadiisa in micnihii uu ka sareeyo, inuu ka sareeyo shaki uguma jirin. waxaa la mid ah axaadiista nabigana ka sugan calayhi الsalaaةu wasalaam, xadiid abi saciid اlqudri radi allahu tacaala canhu, markii yani cali yeman loo diray yeman, nabigu wuxuu leeyahay alayhi الsalatu slam, xadidka waa u dheeraa, yani caamir ibn tufayl sii warinaya. akhirkiisa waxaa ku jiray markii nasaarada bacd aصxaaba walansaar wageyrihim markii ay nabiga la hadlaan, ansaarta iyo saxaabada qeyb kamid nabiga markay la hadleen, wuxuu nabiga ku yihi calayhi الsalaatu wasalaam, alaa ta'manuunii miyaanad i aamineynin, wa ana amiinu man fi الsamaa yaأtiinii
khabar min الsamaaءi صabaaxan وamasaa bukhaari iyo muslim ayaa isaga wariya soo uma jeeda marka wuxuu leeyahay war maan haddii aaminaynin ilahi subxaana watacaala ayaa wax igu aaminay oo i aaminay marka khabarkana ilahay agtiisa ayuu iga yimaadaa yani صabaxan وamasaa subaxdii iyo habeenkii u yimaadaan. xadiidkan abi darda naftiisa uu wariyey iyo abi daawuud xadiid abi darda oo hadda aan soo hormarinay abi daawuud naftiisa uu warinayana yani qofkii wax ka sheegta man ishtakaa minkum shay-an amaba qof walaalkiisa oo sheeganayo u arko falyaqul ha yihahdo rabbuna aladi fi الsamaaءi taqadas ismak amruka fi الsamaaءi wاlardi kama xadiidkaas micnihi ha yihahdo marka ka isaga naftiisa culamadu way saxiixinayaan. ayib min axaadiid bukhaariga iyo muslimka ku jirto haddaan tilmaano waxaa ka mid ah oo tilmaamaysa yani culuwiga tilmaamaysa in allaha kataba kitaaba qabla an yakhluqa اlkhalq ilahi subxaana watacaala kitaab ayuu qoray intuusan bini aadanka abuurin ka hore ana raxmatii sabaqat yani qadabii raxmadeyda ayaa ka hormartay yani caradeeda fahuwa cindahu fowqa alcarsh xadiidka naftiisana bukhaari iyo muslimka fahuwa cindahu fowqa alcarsh inuu adoomadiisa ka sareeyo ayuu tilmaamaya. xadiidka bukhaariga iyo muslimka xadiid abi hureyra tacaaqabuuna fiikum malaa'ikat leyl wamalaa'ikat nahaarna waan soo tilmaanay wayajtamicuuna fi salaati اlfajr nacam way badan yihiin calى kuli xaal. waxaa lamid a xadiidka bukhaariga naftiisa uu warinayo xadiid ibni cumar qaala lamaa qubida rasul lahi sal lahu alيه wasalam markii nabiga nafta micnihii laga qiblooday oo laga qaaday waxaa yimid dakla caleyhi abu bakr radi allahu tacaala canhu markaasuu abu bakr usoo galay markaasuu wejiga ka dhunkaday nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam markaasuu abu bakr wuxuu yihi waqaala biabi anta wa umii tibta xayan wamayitan yani waad udgoonaatay ood qurux badnaatay markaad nooleed iyo markaad yani dhimatay kadibba markaasuu hadal abu bakr macruuf oo haddaba la yaqaano ayuu yiri wuxuu yihi waqaala man kana yacbudu muxamed ninkii caabudi jiray mحamed faina mحamada qad maat nabiga waa u dhintay alayh الsلat slam wman kana yacbud الlah faina اllaha xayin fi الsamاء laa yamuut rawahu الbukhaarي marka ilaahay mnihi xayun fi الsamاء laa yamuut lafdigaasuu ku daray. waxaa kaloo lamid a xadiiska an ibni malik uu wariyey kanat yani zaynab tafkuru calى aswaaji rasuuli الlah wataqulu waxay dhihi jirtay zaynab waxay ugu faani jirtay xasiiska nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam waxay dhihi jire wataqulu waxay dhihi ina allaha zawajnii min الsamاء ina allaha zawajanii min الsamاء adigu markaad ducaysanayso gacmaha hoos uma dhigtidoo saan ma dhahdid yani gacmaha koraad u qaadaa waxaad tirahdaa ilaahay waxaan isii ilahay waxaan isii xataa kuwaan gaalada markay balooniga iyo wax dheelayaan hadafka ama goolka markay dheelayan gacanta saasay leeyihiin yani waxay qirayaan in ilahi subxana watacaala uu ka sareeyo marka dhibka uu ku dhacan ilahay waa u tilmaamay inay gacmaha kor u qaadi jireen. xadiid kaleo waxaa soo aroray isaga naftiisa sax ah ilaahi subxaana watacaala waa ka xishoonaya addoonkiisa marka gacmaha kor uu u qaado oo ilaahay u baryo in yani ayagoo eber ah oo hogsan uu soo celiyo. ducadana walaalayaal saddex un bay naqataa in adduunka lagugu siiyo oo waxa aad doonaysay ayagoo socdo adduunka lagugu siiyo oo ilahay markaad baryaday lagu siiyo wa imaa in lagu keydiyo haddaana degdegin siduu nabigu u tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam ibn aadamku wuxuu leeyay qad dacawta u leeyahy in lagu keydiyo aakhire lagu yidhaahdo khuduuha kaamila addoonkeygiyo adduunkood igu barideen waxba idinma siina maanta ayadoo dhamaystiran qaata. midda kale waxay tahay ducada faa'idada ay leedahay masiibo kugu soo socoto in lagaaga celiyo saddexdaas un bay mid gashaa ducada cidlo kuma dhacdo. marka waxay leedahay yani zaynab markay ay ka hadlaysa waxay tihi waxaa idin guuriyey adinka ehelkiina ayaa idin guuriyey wazawajni allaha min fowqi 7 samaawaat adinka ehelkiina idin guuriyey laakiin aniga allihii fowqa 7 samaawaadka ahaa ayaa micnihii io guuriyey. xadiid cabdullahi ibni mascuud nabigu wuxuu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam qofkan dadka u naxariisa man lam yarxam man fi lardi ilahi subxaana watacaala uma naxariisto. marka intaaso xadiid ayaa micnihii sugan. ilaahay inta ma jiro laa tuxiita bihi jihaat sita yani jihaat sita waxaa la yihahdaa qorax udhac kasoo baxay 4 qibladood ma jiro korna ma jiro hoosna ma jiro. marka ilaahda caabudaysa xaggee jiraa ilaahay yani midig ma jiro oo bidax ma jiro oo xagga ma jiro oo inta ma jiro 4 qiblo ma jiro
korna ma jiro hoosna ma jire soo cadam maaha waxaad caabudaysa ilaahaad caabudaysaba ma taqaanid inuu adiga kaa sarreeyo kor ma jiro hoos ma jiro dhinacaan ma jiro dhinacaan ma jiro qorax bax ma jiro qorax meel u jiro male marka waxaa la yidhahdaa cadam shay nin caabudaya wuxuusan ogeyn marka waa inaad ogaataa ilmaha yaryarka marka ay dhashaan caqiidadooda saxda ayna allah allah fi samaa waa in la baro inuu adoomadiisa ka sarreeyo caqiidada yani waxyaalaha asmaa wa sifaatka waxyaalaha yaryarka ah tarbiyada ayay ka mid tahay ayna allah ilmaha la yidhahda allah fi samaa inay yidhahdaan adigu markaad gacmaha taagaysana koraad u taagtahay saan ma dhahdid haddii ilaahay meel walba uu joogo marna maa saan dhahdid marna saan dhahdid marna saan dhahdid marna saan dhahdid maxaad kor gacmaha ugu taagaysa illa waxaad ogtahay inuu kaa sarreeyo waana inkaraysaa marka salaada dukanaysan waxaa leedahay subxaana rabbi alaclaa ayaad leedahay marka waxaad ogaataa meeshaas ayada khalal badan ayaa kugu jira isdaawe oo micnihii sug sifaatka alle subxaanahu watacaala uu leeyahay iyo in addoommadiisa uu ka sarreeyo cabdillahi ibn mubaarak isaga waxaaba laga soo guuriyaa ninka yihahda ilahi subxaana watacaala makhluuqiisu ku dhex jira fa huwa kaafir saasuu leeyahay marka dood waxaa jirta oo yani cumar haweeney khawlo markuu arkay markii ay joojisay fawaqafa laha uu u joogsaday markaasaa wuxuu ku yidhi faqaala wuxuu yidhi hadihi imra'a haweeneydan samica allah ilahi subxaana watacaala wuxuu maqlay shakwaaha min fowqi 7 samaawaat haweeneydan khawla markay sheeganaysay ilaahay subxaana watacaala shakwadeedii fowqa 7 samaawaat uu alla subxaana watacaala uu ka maqlay marka gabay ayay kusoo gudbiyaan oo micnihii ninkeedii ayadii markii jaariyada micnihii uu ku dhacay lahu faqaalat lahu imra'atii waxay ku tiri facaltuhaa waxaas ayaad samaysay saasaad samaysay qaala wuxuu yihi ama ana yani markaasaa gabayay keenaan meesho ama anti adiga qur-aanka ma akrin karaysa aniga lakin ma akrinay markaasu gabay ayuu tiriyey wuxuu leeyahy marka shahidtu biana wacd allahi xaqun wa ana naaru mathwa lilkaafiriina wa ana alcarsha fowqa almaai taafa wa fowqa alcarshi rabi alcaalamiina wtaxmiluhu almalaa'ikatu alkiraami malaa'ikatu ilaahun yani gabaygaasu isaga meesha uu ku tiriyay gabaygaasay keenaan marka soo uma jeedid saxaabada naftooda fowqiyada inay micnihii ay sheegi jireen hadalkii hadda idin soo guuriyeyna waxaa ka mid ahaa hadalkii yani cabdullaahi ibnu mubaarak oo isaga naftiisa uu yidhi mar hadalkii uu soo guuriyey oo uu ka soo guuriyey cuthmaan ibnu saciid adarami uu ka soo guuriyey xasan ibnu صabax qaala wuxuu yihi cali ibnu xasan ibnu shaqiiq can ibni mubaarak qiila lahu kayfa tacrifu rabbuna rabbigeena qaala wuxuu yihi baa'inu fowqa samaawaati saabica calaa carshi baa'in min khalqihi marka waa la sugayaa imaamu malik raxmat ullaahi calayhi markii loo soo galay nin uu yimid oo u weydiiyey wuxuu ku yidhi ayna allah masaladaasuu micnihii u weydiiyey waana qeybta ugu dambeysa oon kusoo koobayno qaala wuxuu yihi imaamu malik ayaa su-ila la weydiiyey raxmat ullaahi caleyhi imaamu daar hijra ya abaa cabdullaahi alraxmaanu cala alcarshi istawa kayfa istawa istawaha waa sidee faqaala wuxuu yihi alistawa gayru majhuul istawaha wax qarsan ma ah biluqa alcarabiya waa la yaqaana walkayfu gayru macquul kayfiyadu in las weydiiyo sidee ilahay astugiisa u ahaaday waa gayr macquul waliimaanu bihi waajib in la rumayno waa wax waajib ah wasu'aalu canhu bidca in kayfiyadda lis weydiiyana waa bidco yihi kadib baa wuxuu amray ninkii bimacnaa in meesha laga saaro ninkan iga saaro yihi wa ahlulbidca aharka isaga ibnu qudaama naftiisa alculuw kusoo saaraa wadahabi fi lculuw wa ibnu naciim abi naciim alasbahani fi lxulya وcuثmaan ibnu saciid adarami raddu calى jahmiya raduud calى jahmiya kusoo saaraa wa sharax ictiqaad lilkalai imaam lalakaai fi sharx usul ictiqaad ahli sunna kusoo saaraa wa abu cuثmaan الصabuni fi caqiidaة الslf ayuu isaga naftiisa kusoo saaraa wاlbayhaqi fi asma wالصifaat ayuu kusoo saaraa min طariiq yani jidad badan oo isqaweynaya oo is adkeynaya ayaa lagu soo saaraa albaniya naftiisana waa uu saxiixiyey mukhtasarkana culuw licali lghafaar ayuu ku saxiixiyey xaafid ibnu xajarna fatxiga ahar saxa waay midkaas imaamu malik naftiisa wallahu aclam intaas ayaan maanta micnihii ku kaaftoomayna wa ilaa huna wsubxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk